maxkamadda sare ayuu yeelaa wakiilo ama soo dirsadaan ama ayaga iga soo qayb galaan intaasaa dhimanad way aqbashay kulley warqadan isniintii soo saaraysaa duuleedkaal markii warqadda ay soo saaraan warqadaas waxaa waaye waxay caddaynaysaa inay furan tahay invitation waa loo diraa inay dacwada taalla marka inay kasoo jawaabaan haddii kasoo jawaabi waayaan hadda wax u yeelo waaye qaranka u yeelo waaye hirshabelle waxaa waaye waxay ka tirsan tahay dowladda federaalka ka tirsan tahay maxkamadda kale hadda oo wadankan maxkamadda sare ka sareyso oo qofka markuu xuquuqdiisa oo siyaasiga uu waaye ama wixii kale uu lahaa uu waaye meel kale la aadi kara malaha marka cidda keliya oo la rabo inay go-aankeeda qaadato oo jawaabtii ka jawaabto waxay noqonaysaa baalka laakiin annaga iskudaga aan leenahay wuxuu yahay in aan wax xuquuqdaas naga maqan xuquuq naga maqan tahay sifadaas sharcigana aan ku raadin waa way naga go-an tahay inaan kiiskan ilaa iyo maxaa meeshii ugu dambaysa aan la gaarin wasiirada dabcan waa wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada wasiirka waxaa waaye waa mishaarkiisa waa 2,000 oo baarlamaanka uu ansixiyey madaxweynahan oo warqad ku soo saaray oo caddeeyey inay xuquuq bilood intaas lagu dhufto waxaa waa dareemi kartaan lacagta maqan iyo xuquuq laakiin hadda annaga kiiskan waxaan ku nahay 11 wasiir marka hore ku aheen laakiin hadda ilaa hadda macnaha kiiskan dadka ay ka go-an tahay inay wadaan waa 11 madaxda sare ee maamulka Hirshabelle ayaa waxaa inta badan lagu eedeeyaa sida la sheegay inay mushaar siin mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle ay ugu horeeyaan wasiirada iyo xildhibaanada maamulkaasi iyadoona haatan dacwad arrintaasi la xiriirto ay ka taalo maxkamadda sare ee dalka madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabelle